dadaalaya aqoon baa dadka kala hormariso dayaxa sarreeyay lagu tagay daruuraha ana doorkan maanta dagalkii aqoontii iyo dawadii jahliga aan ku dilaacshay madaariska daaru tilaawa soo gaadha dabadaha adoon qaban dal shisheeyana u tagin dagalkaaga hooyaad ka helaysaa duruustaas daaru tilaawa soo gaadha diinteena suubani daayarta iyo waayeel qof waliba ah dadaalkii saxaabada darsanaya daaru tilaawa soo gaadha madrasada macaahidda waxaa la aasaasay 2006 waxay madaarisku shaqaynayaan muddo ilaa ku dhow ilaa 11 sano himilooyinka iyo waxyaabaha aanu hiigsanayno walaalayaal waxaa ka mid ah walaalayaal inaan soo saarno arday aqoon iyo akhlaaqadba ka dhisan kariimka iyo culuntiisa ayaa doorkan waxaa idiin soo korisay qayb saddexaad oo cusub taasi oo ah qaybta barbaarinta carruurta ee loo yaqaano kejiga oo ay qaadanayso ardayda ay da'doodu dhaxaysa 3 sano ilaa 5 sano jir kuwaasi oo ay gacanta ku haynay waxna barayaan hooyooyin macallimiin ah oo ku takhalusay isla markaana aqoon durugsan u leh barbaarinta iyo waxbaridda carruurta yaryar kuwaasi oo labada gelinba wax la bari doono sidoo kale qaybtan cusub ee madaariska daaru tilaawa ay idiin soo korisay ayaa iyadana waxaa ku jira barashada quraanka kariimka iyo culuntiisa ee dadka waaweyn gaar ahaan dumarka kuwaasi oo geli doona 6 ilaa 8 fiidnimo ay baran doonaan quraanka kariimka ah tajwiid ahadiis ducooyin iyo kuwa la halmaala haddaba aan idiin tilmaamay madaariska daaru tilaawa qaybta koowaad iyo qaybta saddexaad waxay ku yaalaan dhinaca bari ee masjidka ina weerar halka qaybta labaadina ay ku taalo agagaarka dugsiga sare ee biyo dhacay wixii faafaahin dheeraadana waxaad kala xidhiidhaan taleefanada shaashada ku qoran.